قلوب زادها الحب نقاء قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسلام qaarkood waxay ku arkaan inaad tahay mid doorsoon qaarkoodna waxay ku arkaan inaad tahay dambiile qaarkood kalena waxay ku arkaan inaad tahay sidaas iyo sidaas balse xaqiiqadu waa adiga ayaa yaqaan naftaadu waxay tahay sirta kaliya aanan ogaan karin qof aan adiga ahayn waa sirta naga dhaxayso adiga iyo rabbigaaga yeysan ku kelinin kuwa ku amaanayo yeysan ku dhibin kuwa ku caynayo maxaa yeelay xaqiiqadu waxay leedahay balil insaanu calaa nafsihi basiira nolosha halisteeda ee daacada iyo macsiyada waxaa ka mid ah adigu inaadan garanaynin waqtiga ay ku ahaan doonto khaatimadaada daacada u samee si alla ka cabsi ah ha u samaynin mar uun iska dhamee sunooyinkana u samee u dhowaanshaha rabbigaaga yeesanna kaa noqonin sharaf raadis wallaahi adiga ayaa u baahan daacada rabbigaagana wuu ka deeqtoon yahay hamigaaga ha ka yeelin dadka jeceelkooda dadka quluubtoodu waa mid isbedesha maanta wuu ku jeclaanayaa berina wuu ku nacayaa hamigaaga ha ahaado siduu kuu jeclaanayaa rabbiga dadka maxaa yeelay hadduu ku jeclaado laabaha dadka wuxuu ka yeelayaa kuwa ku jecel xaaraantu waxay ahaan doontaa xaaraan xitaa haddii ay sameeyaan dadka oo dhan ha ka tanaasulin mabda'aaga keligaaga ayaa lagu xisaabin doonaa u toosnow sidii laguu amray ha ku toosnaanin sidaad adiga jeceshahay naftaada ka yeel mid kaaysan oo qarsoon aanan ogeyn cidna alle mooye sida ay u yihiin halaag dembiyada qarsoon sidaas oo kale ayay badbaado u yihiin xasanaadka qarsoon laqad radiya allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara ha ku mashquulin goobaha la qurxiyey maxaa yeelay shirarka ugu weyn ee taariikhda waxaa lagu qabtay geed hoostiisa ilaahayow arrinkayga adiga ayaan kuu dhiibtay wuxuu yidhi mid ka mid ah culimmada ilaahay waxaan weydiisanayaa xaajo hadduu isiyo waxaan ku farxayaa 1 jeer hadduusan isiininna waxaan ku farxayaa 10 jeer maxaa yeelay midda koowaad waa doorashadeeda midda labaadna waa ilaahay doorashadiisa ilaahayna waxyaabaha maqan qofka og weeyaan way qurux badan tahay ku kalsoonaanshaha rabbiga adoomada wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuun taasi waa jawaab ku filan hadalkeena maxay arinkaasi aniga igu dhacaysaa maxaa yeelay ilaahay wuu og yahay anaguna ma ogin soo gelitaanka dadka qaar noloshaada ama ka bixitaankooda waa naxariis rabbigaaga xaggiisa ka ahaatay naxariis aanan dareemaynin ilaa waqtigaasi mooye sanaduhu wax badan ayay bedelaan waxay bedelaan buuraha taagtaagan haddaba sidaysan u bedelaynin shakhsiyaadka bini'aadamka salafku waxay ahaayeen kuwo isku dardaarmo 3 kelimadood haddii lagu miisaamo dahab way ka raajax noqon lahayd kelimada koowaad qofkii hagaajiya asiga iyo ilaahay wax ka dhaxeeya ilaahay wuu u hagaajinayaa asiga iyo dadka wax ka dhaxeeya kelimada labaad qofkii wanaajiya wixiisa qarsoon ilaahay wuu u wanaajinayaa wixiisa muuqda kelimada saddexaad qofkii daneeya arrinkiisa aakhiro ilaahay wuu u kafaalo qaadayaa arrinkiisa adduunyo iyo tan aakhiraba noocyada khasaaraha ugu daran waa jannadu baliceedu inuu yahay samaawaadka iyo dhulka adiguna aadan ka helin wax boos ah ka faa'iideyso nolosha waa zaadkaaga